khubarada qaar ayaa ka digay in al-shabaab aysan u kala duwanayn cidda madaxweyne ka noqonaysa Soomaaliya. laakiin Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab haatanna ku nool dalka Sweden waxa uu aaminsan yahay in madaxweynuhu uu isbedel ka samayn karo dhinaca la macaamilka al-shabaab haddii uu qaado dhowr tallaabo. anigu waxaa isleeyahay hadduu oo farmaajo u qaato dhowr arrimood in isbedel weyn imaan karayo. tan koowaad hadduu uu wax ka qabto dhanka siyaasadda iyo wacyigelinta ugu horeyso in la sameeyo uu sameeyo hadduu ku guureysto guddi ka kooban culamaa diinta iyo raggii waxgaradka ahaa ee ka dhiijiyay qaladaadkii diiniga ahaa ay ku kacayeen qoladaasi iyo dhibaateynta shacabka. guddigaasoo wacyigeliyay dhalinyaradaasina waxaa ogsoonaha waxaa loo diiday inay dhegaystaan rag aan iyaga ahayn. anigana waxaan hubaa in dhalinyaradaasi haddii la helo waddo lagu gaarsiinayo oo ama lagu wacyigelin karo in oo jaanis loo helo in guddigaasi dhalinyaradaasi ay la doodaan in mabda'a lagu dagaalgelinayo oo ah in shareecada kor loo qaadayo iyo waxa madaxdooda ay ku socota ay yihiin kaaf iyo kala dheeri. qodobka labaad aan isleeyahay nimankaas waxa loogu bedeli karo waxay ku xiran tahay habka uu farmaajo u wajaha arrimaha ammaanka. haddii uu wax ka qabto dhibaatooyinka dalka ka jira oo la joojiyo dulmiga iyo xabsiyada cadaabta ka jirto oo la xiro dhammaan xabsiyada sirta ah iyo xabsiyaha shisheeyaha ay ku leeyihiin dalka iyo in la joojiyo oo waa muhiim in la joojiyo dadka la iska raafayo dhalinyarada la iska raafayo masaakiinta ay xabsiyada in la geliyo lagu gorgortamo kadibna la kala gato iyo in cafis loo fidiyo dhammaan ragga ururkaasi ka tirsan iyo in dawladdu ay joojiso hanjabaadda sida waan soo afjaraynaa iyo dalka waan ka sifeynaynaa iyo waan ka xoreynaynaa. haddii arrimahaasi ay ku guulaysato waxaan isleeyahay la imaatay istaraatiijiyada kaleto oo ah nin ragga waxaan isleeyahay walaalow waxa u dhaamo waa la waaye. Rashiid Cabdi oo ka tirsan ururka ICG waxa uu soo dhaweynayaa talooyinka ka yimid Abu Ayaan waxaana uu intaasi ku daray in madaxweynaha cusub uu horumar ka samayn karo inuu meesha ka saaro mid ka mid ah qodobada al-shabaab ay cuskadaan marka ay noqoto dagaalka ay ku jiraan oo ah ciidamada shisheeye. waxa uu leeyahay Rashiid Cabdi madaxweynaha cusub waxa uu dadejin karaa dhismaha ciidan qaran oo Soomaaliyeed. waa fikrad wanaagsan waxaan u malaynayaa sidaan ku sheegay mar horeba waxaa la rabaa dawladda in ay si wanaagsan uga baaran degto arrintanayda maaragtay wada hadalka ah. tan labaad waxaa weeye arrinta ku saabsan amisom iyo bixitaankeeda. labadan sano ugu dambeysay waxaan u malaynayaa in xaaladda ay aada isu bedeshay. mawqifka amisom waxaa weeye hadda in 2 sano gudaheed ay dawlad ay ka baxdo Soomaaliya. wadamada Kenya oo kale iyo Ethiopia iyo Burundi waxay rabaan inay ka baxaan Soomaaliya. marka waxaa la rabaa qorshahanayda inuu noqdo maaragtay qorshe maaragtay si wanaagsan u habaysan aynan aynan ka bixin Soomaaliya maxaa yeelay taa dib kale keenaysa. waxaa ii muuqata hadda in heshiis wanaagsan la gaari karo maxaa yeelay madaxweynaha cusub xiriir wanaagsan buu la leeyahay maaragtay militariga Soomaaliya iyo maaragtay hay'adaha amniga oo dhan buu xiriir wanaagsan la leeyahay. marka haddii kalsooni la siiyo haddii taageero la siiyo waxaan filayaa in maaragtay uu ku guuleysan karo in maaragtay uu dib habeyn wanaagsan uu ku sameeyo hay-adaha NATO amniga iyo militariga inuu meel wanaagsan gaarsiin karo 2 sano gudahood.